muwaadin ku dhawaad 60 sano ayaad marti ka tahay siyaasadda dalkaaga lagu hagayo waxaana masiirkaaga loo hoos fariistaa shakhsiyaad kooban oo kuraasta lagu matalo iibsada masaxba Soomaaliya waxay ka gudbaysaa doorashooyinkii musuqmaasuqa nin jeclaysiga iyo naasnuujinta muddo dheer kadib waxaa la soo laabayaa albaabkii doorashooyinkii dadbanaa ee sababta u ahaa xasilooni darrada siyaasadeed iyo niyadjabka ummadda waxaana loo gudbayaa hirgelinta hannaanka doorashooyinka qof iyo cod oo ah yididilo bulsho iyo rajo dimuqraadiyadeed waxaana 55 sano kadib la rumaynayaa riyada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in mar uun ay codkooda ku cilbaxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 2 mar lagu doortay doorasho dadban marna looga guuleystay waxa ka go'an inaan wadadaasi qalloocan ee qodxaha badan dib loogu laaban waryaar raalli ka doorashada dadbanad yaa waay qofka ku qanacsan oo inay cadaalad ahayd oo sax ahayd oo aan la isku dulmin oo aan la isku joor farin oo khaladaad aanay ka dhicin mustawa kasta qofka ku qanacsan waayo doodda madaxweynaha waxa sal u ah aragti ku dhisan dimuqraadiyad xisbiyo siyaasadeed iyo loolan fikradeed wuxuuna xudun iyo tiir dhaxaad u yahay qorshaha shacabka loogu dhaweynayo xukunka si ay u soo xushaan ulana xisaabtamaan dadka ku matalayay miisaska siyaasadda dal walba oo maanta ku naaloonaya doorasho qof iyo cod ah wuxuu soo maray marxalad ay adag tahay ku dhiirashada in shacabka awoodda loo celiyo waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waa tusaale ku habboon marxaladda maanta Soomaaliya ku jirto dawladda oo aan dalka intiisa badan gacanta ku hayn dagaalna kula jirta koox fallaaga ah waxay sanadkii 2020 hirgelisay doorasho qof iyo cod ah dadka doorashooyinka ku xeel dheer waxay qabaan in marxaladdii ay xilligaasi doorashada ku qabatay Afrikada Dhexe ay Soomaaliya haatan ka wanaagsan tahay marka la eego amni ahaan dhaqaale ahaan iyo xasiloonida siyaasadeed intaba haddaba maxaa hortaagan in waddanka loo dareeriyo doorasho leh halbeega caalamiga ah ee one man one vote siyaasiyiin ay ku jiraan madax dalka soo hogaamisay ayaa caqabadda qayb ka ah doorashadii ugu dambeysay mid walba wuxuu manifestadiisa ku xusay inuu hirgelinayo doorasho dadweyne waxaan ku dadaali doonaa inaan dib loogu naqanin doorashooyin dadban iyo kuwa kaleba lana aado lana gaarsiiyo dalka doorashooyin toosa oo meel walba ka dhaca waa ballanqaadkoodii maanta maxay ku diidan yihiin si aan dib loogu laaban jaawareerkii iyo qalalaasihii doorashooyinkii la soo dhaafay golaha wadatashiga qaran wuxuu go'aamiyey in xukuumaddu soo dhammaystirto dhismaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha guddigaas waxa ay diyaarinayaan jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami u socodka geedi socodka doorashada codbixinta doorashooyinka dawladda hoose waxaa loo dareerayaa bisha Juun ee soo socota halka doorashooyinka baarlamaanka iyo midda dawlad goboleedyada la aadi doono bisha Sebtembar ee soo aadan si loo xaqiijiyo waajibkaas dastuuriga ah golayaasha baarlamaanka ayaa maalmahoodii fasaxa gaabiyey si ay u meelmariyaan sharciyada muhiimka u ah hirgelinta doorashada si hannaankan doorasho u noqdo mid la isla ogol yahay meeshana looga saaro kalsooni la'aanta iyo kala qaybsanaanta madaxweyne xasan oo ku suntan oday wada hadal wuxuu xilliyo kala duwan xusay in isqancin iyo wada xaajood lagu raadinayo madaxda maqan mucaaradka iyo bulshada rayidka waxaan ku celinayaa oo aan cod dheer ku leeyahay ma jiro qof Soomaali ah iyo degaan Soomaaliyeed oo laga maarmi karo maanta madaxweyne xasan wuxuu haystaa ku dhawaad 2 sano oo muddaxleedkiisa ka dhiman waa waqti ku filan qabashada doorashada dalku u baahan yahay sidoo kale waxaa arrinkan sii xoojinaya in waddanku 2 sano ee la soo dhaafay uu ka soo gudbay caqabado muddo hortaagnaa dawlad dhiska iyo horumarka sida deymihii cunaqabatayntii hubka iyo ku tiirsanaantii amni ee shisheeyaha marka la eego doorashooyinka xiisaha leh ee Somaliland iyo kuwa golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland kaliya koonfurta dalka heer state iyo heer federaal waxa uu furan hal wado taas oo ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku taageeraan qabashada iyo hirgelinta doorashada safarka 1 kiiloomitir loo aadayo maxaa la yiri wuxuu ka bilowdaa Soomaaliya talaabtii ugu horeysay ee doorasho qof iyo cod ah 55 sano kadib walaalayaal waa doon inaan qaadnay ayaan qabnaa